في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. maanta waxaa farxad iyo sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku martigelino qorayaal noogu yimid dalka Sweden, walaasheena Iftiin Nuur Cali iyo qoraa Xasan Maxamed Xaaji oo noogu yimid dalka Sweden. runtii dalka Sweden markii la fiiriyo dhanka qoraalka iyo daabacaadda iyo xoogaa waa nooga fiican yihiin. xataa maktabadahooda waa maktabadaha ugu badan oo laga helo buugaagta Soomaaliga oo af Soomaaliga ah. maktabahooda kharash ayay geliyaan inay buugaagta Soomaalida ay iibsadaan ayna dadkii ergadaan. anaga dalka UK waa qabnay maktabadaheena buugaagta Soomaaliga waa qaadan jireen, laakiin qof ergadaa laga waayay. markii ay saas dhacday waxa way joojiyeen library-yaasha oo UK. marka barnaamijyadan oo kale waa inay nagu dhiirigeliyaan in aan akhrino buugaagta af Soomaaliga insha Allah tacaala, hadduu Ilaahay yiraahdo. insha Allah tacaala waxaan hadda kusoo dhaweynayaa Cabdiraxmaan Abdidoon oo ah bixino badan oo afka Ingiriisiga u adeegsan jirnay ayay erbixin u samaysay. taasna runtii waa wax weyn. erbixintu waa muhiim. marka buuggan oo Iftiin qortayna erbixino badan ayaa ku jira oo wax u taraya hadduu Ilaahay yiraahdo. sidoo kalena buugga Xasan sidaa ogtihiin saxaafadda hadda baraha bulshada qof walba suxufi iska noqday, laakiin xorriyatul qowlka waxa waaye mas-uuliyad weyn waaye. xorriyatul qowlka mas-uuliyaddii oo laga rabay ayuu qoraa Xasan uu sharxayaa. marka hadduu Ilaahay yiraahdo haddana insha Allah tacaala waxaan kusoo dhaweynaynaa qoraaga weyn oo reer UK ah, oo meel walbo buug lagu dhex furayo waa inuu joogaa laa yuftaa wamaaliku fi lmadiina hadii yiri. marka waxaan kusoo dhaweynayaa qoraa Maxamed Ciise Turunji. تفضل بارك الله. وسلامتين نقولين إن أنت أخذنا رمضان بوكا لبنا ضبط عن سنة كورو مقعد غوتنبرغ إدرك سويدن لبنا ضبط واحد جيسي وحياة يودين بوكتان Iftiin waa sheegtay way ka hadashay arrintan hadda magaca loo bixiyay kulliba iyadan weydii doonaa tiitolka buugga waxa magaca Soomaaliga oo meesha ka yimid kulliba baadiyaha Soomaalida ka yimid oo malaynayo magaala kama imaan. waxay noo sheegi doontaa arrin ayada qabatay ama anaga dhan na qabatay maanta oo dhan Cabdicaziis xildhibaan ka wada hadlaynay arrimaha ay Iftiin rabto inay nogala hadasho familiyaalka Soomaalida ay aad ugu badan yihiin. marka inaan ka dhageysano waxaan rabi lahayn dad badan oo inta ka tiro badan siiba haweenku inay joogaan guriga. problemkan camal oo ku jiro oo guriga u badan yahay haweenkaana badana ka shaqeeya. Xasan naftiisu sanadkii dhawada waa isku aragnay Gothenburg wuxuu wado halkaan ku qoray horena waa noogu sheegay inta xag aan joognay. asna waa dhageysan doonaa. marka sanad Turunji anaga dadka joogaba halkii qof wuxuu u dagaa 50 qof dad culus ah jooga alxamdulillah. haddana waxaan u yeerayaa oday qoraa ah oo dadkii hore ah maasha Allah oo aad loo yaqaano qoraa Maxamed Raami. ilaahay fadlan ila soo dhaweeya. baarak Allah fiik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ugu horeyn aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. weliba ninkii ii sheegay muu imaanin. hadda ninkii ii sheegay waan kusoo talagalay muu imaanin. marka waa qayb marka ana aad baan u xiiseynayay. waa markii koowaad oo aad baan Iftiin
arrintan kolba dakaaka ku qoran laakiin un sida electric autism baa loo yaqaanaa aad baan ugu faraxsanahay horta inaan ka qayb galo aan xiiseynayay waxaan xataa is-iri nabdooyow dhaqankii soomaalidu anigu horta baadiya ku koray 6 sano baan baadiya ku gaaray geel ari baanaan lahaan jirin ley badanaa aabbaayana u daray qola leeyaha dugsi haysata macallin haysata ilaa cabbaan ku bartay dugsigaas marka xamar waxaa nimid anoo 16 jiro nabdooda oo geel qaada oo wax noocaasi marka waxaa igu soo dhacday hadda waxaan la jeedaa taariikhdaas waxaan la jeedaa maxaa loo aqoon jiray waa jiri jireen dad si ah uun oo soomaalida u dhalan jiray waa jireen waxaa ka mid ahaa jiray magacyadii hore markaan fiiriyo fadhiid baa jiri jiray waxaa ahaan jiray fadhiid ilmo waktigii la rabay inuu ku socdo aan ku socdo oo haddii 2 sano la rabay inuu ku socdo ama 1 sano iyo bar la rabay 5 sano inuu iska fadhiyo muddo wax dhib kale ma jirto waxaa jiri jiray oo kale oo labaad cilm baa jiri jiray cilm badanaaba waxaa isna qof uun si ah laakiin gaaban isaga gaabnida gaar u sii ahay waxaa kaloo jira qof si ahna waa dhihi jiray oo magac saddexaad si un ah sibaaban qof sibaaban waa jiri jiray laazum waxaa weeye raalli ka ahaada dee waa meeshaan ku koray wixii magacyada sidii loo yaqiinay maaha wax caam ah marka meeshaasaan ku koray wixii la dhihi jiray un baan sheegayaa soomaaliya oo dhan yani kama sheekay karo marka dadkii uun sida ahaa gaarkaa ka hadda taniya shalay waxaan ka fekerayay abooyow haddee maxaa la dhihi karaa autism waxaa loo qaadan karaa waxaan maqlay fiyanadaga marka iftiin si ay maaragtay igu iftiimiso waayo war badan war badan oo aniga hadda igu jeclaya waa inay hayso waan haysaa runtii yacni magac bixinta markii la waayo haddee magac un u dhigma ama u dhow oo kaleeto sida electric iyo radio umaan iska dhahaya marka dambe oo magacii uun qofkiis keenay oo kaleeto un baa loo bixinaya sida electric iyo radio iyo TV iyo waa loo qaadanaya laakiin maxaa ugu dhow waxaan maqlay dhaqaatiir ayaa waxay yidhahdeen maraykanka u sheegay inay halkaas joogaan dhaqaatiir inay yidhahdeen waa maangaar baa la yidhahdaa waa dadaal maangaar baa la yidhahdaa soomaaliguna hadda maan markaan ka fekerayay maangaar waxaan si maan siisa waa caqli waa maskax marka hadda dadka inteena wada fadhidaaba isku maskax maahin maskax baan laakiin wadaneen waa la kala heerar gedisan yahay qof maskaxdu sarayso inay gaaban tahay laakiin maskax gaara qolaalihii ma jirto waa la wada leeyahay maan oo maskax caqli saas tagi marka caqli gaar uu leeyahay waa ila dhibaatay kolba marka aad iyo aad baan maaragtay idinkaga mahadcelinayaa soo dhawaada hadee reer London baan nahay iyo Professor Xasan isagana qoraal ah galabtaaba igu horeysa marka reer Sweden reer London ma aha
sida hadda loo sheegayay xagga qoraalka iyo ardada Soomaalida oo halkaa jooga sida la ii sheegay baa waxay jaamacad ba laydinma ogola haddii aydan maray Soomaaliga aydan ku fiicnay waa sax diin caadi ah marka idin lama tartami karo laakiin waxaan isku daynaa inay soo gaaray waa maashadeeda sidoo kale Sweden waxay qabaan bahda laashin ayaga laftirkooda eray bixinta iyo maasha Allah dhinacaas waa ku fiican yihiin sidoo kale qofka aasaasay laashinna waa gudoomiye ku-xigeenka akademiga goboleedka oo ka mas'uula eray bixinta iyo oo loo xil saaray ayaga laftirkooda marka waxaan rajeynayaa iftiin kulley inay la tashatay oo marka eray bixinteedana uu noqon doono insha Allah tacaala mid oo bulshada dhan ay isticmaalaan hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah tacaala waxaa mar walba la yiraahdaa dhakhtarka haweydiin laa tas'al tabiib is'al almujarrab marka haddana waxaan u yeerayaa qof oo la tacaalay macnaa caruurtiisa oo macnaa mid ka mid ah oo la noolaa xaaladda autism-ka ah qoraana ah oo khibrad ku leh marka fadlan ila soo dhaweeya qora Cabdicaziz Xildhibaan baarakallahu fiikum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف لي إن أنا نقدر نقعد نظهر الله يا مقالة لندن من تلك إنجليز كمان هو رسول ويو ولا هاي وكم إذا قريات الصومالية اللي كان تلك السويدن تارهان لبعض قراء إيمانتا مرسيد أخوة مقالة لندن من تلك إنجليز كا أولا أخوه المريض يفتن علي النور يحسن محمد حاجي محمد خالد الله رسول وادي مقالة لندن Cabdicaziz Xildhibaan microphone loo dhiibay warkan waa soo gaabiyey dacdooyinka magaalada London iyo guud ahaan goobaha aan wararka ka jeediyo ma ahayn laakiin galabta maadaama waqtigu ciriiri yahay waxaan isku dayi doonaa inaan ururiyo hadalkayga waxaan ku bilaabayaa buugga ay qortay gabadho ay qortay walaashay iftiin cali nuur magaca aad arkaysaan afka Soomaaliga ku qoran dalalka qurbahana looga yaqaano autism waxaan ka mid ahay iftiin nuur caliyan ka wadaaya waxaan ka mid ahay waalidiinta Soomaalida ah ee qurbaha ku dhaqnaa 3 sano soo dhaafay waxaan marka hore aad ugu mahad celinayaa gabadha Soomaalida ah ee wiilka hadlaya hadalkiisa aad maqlaysaan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida waxa loo yaqaano autism waxaan rabaa inaan clarification galabta ku sameeyo waxa uu yahay hortasidiisa autism-ku ma ahan waxaa dhici karta qaarkiin inaad iskor qabtaan waxaa qaarkiin dhici karta inaad cholesterol la tacaalaysaan qaarkiin waxaa dhici karta dhiikar inaad la tacaalaysaan xanuun daawo loo qaata ma aha waxaa la yidhaahdo autism-ka ama dhakaakaha ay walaashay iftiin nuur cali ay u bixisay magacaas ma aha xanuun daawo loo qaata ma aha waxaa jira anigu waxaan ka mid ahay dadka Soomaalida ee wax qora burburkii Soomaaliya ka hor buugaag badan leh oo taariikhda iyo suugaanta Soomaalida ku saabsan dad badan oo wax qoraa ama wax cabiraan galabta halkan waa ila joogaan isku si uma fikirno marxalad aan goobjoog ka nahay oo ama dhacdo aan anagu goobjoog ka ahayn ayaan siyaabo kala duwan u cabirayna oo ereyga mangaar oo ku tilmaamay walaalkay markii ugu horreysay waxaan ka maqlay محمد برقدلي محمد عبد برقدلي هالدا وأحمد كم يقرأ الصومالي ده كان ده في سويدن waxaan aad uga xumahay oo aan ka tacsiyadeynaya inaan awoodi waayey wiilkayga galabta inaan maqaati idinkaga dhigo waxaa ila joogta gabar dariskayga ah
oo guriga igu degan aragtay sida aan ula macaamilo ilmahayga. anigu waxaan ahay aabba Soomaaliyeed oo dhalay 10 wiil iyo gabar. wiilka 7aad Xuseen baa la dhahaa, waa 21 jir. aniga dhaqan Soomaaliga marka aad fiirisaan aragtiyadayda waa jireen kala sarreyn heerarka waxbarashada dunyadoo dhan ayay ka jiraan, dalkan aan joognay ka jiraan dunyadoo dhan. wiilkaas waxaa ka hadashiinaya waa dareen uu rabo inuu cabiro. marka hooyada ama wiilka ama qofka la joogaa uu naga aamuso hadalka aad ka celiso, adiga you express yourself. marka adiga meelaha joogtid waa is sheegtaa, adiga waa ka hadashaa dareenkaaga. ogolow ilmaha inaad gacanta ka qabato, dariiqa la marto, ku faanto, deer ilaahay ku siiyey waayo. haddana waxaan soo dhaweynayaa qof dhanka barbaarinta iyo waxbarashada aad ugu takhasusay. fadlan ila soo dhaweeya Professor Cabdirasaaq Shiire, gudoomiyihii hore ee East Africa University. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل odayaashii ugu horeeyay waa intii la yiri jiray. waa soo dhaweynaya walaalkeen martiin oo ah cudurdaarkii reer London ay gudbin lahayn waa la gudbiyey. intaa ka badan inay timaado ahayd. laba qodob baan anigu runtii ku darsanaya oo qoraagu fikir buu cabirayaa, waxuu rabaa inuu sheego, ummadda u gudbiyo, risaalo xambaarsan yahay inuu soo gudbiyo. wuxuu mudan yahay waxa weeye la akhriyo, waayo haddaan la akhrin isku iska haysaa isagaa ku qancay, isagaa runtii jeclaystay inuu soo gudbiyo fikradiisii ama taladii markaa u muuqatay. saa darteed waxay mudan yihiin in runtii la akhriyo labada buug. labada mawduuc, qodobka labaad oo ka hadlaya labada mawduuc runtii waa mawaadiic baahi loo qabo. طبعا autismka waxaad moodaa in daahiro aad kusoo kordhaysa inay tahay oo familada Soomaaliyeed oo cudur ilaahay ama xaalad ilaahay keenay weeye. waana jiri jirtay, laakiin hadda waxaad yara moodaa aqoontii iyo teknolojiyada iyo horumarka adduunka gaaray in markaa la ogaaday in runtii lala tacaalo. marka runtii waa mawduuc aad muhiim u ah in la akhriyo qoys kasto, ama ha lahaado ilmo xaaladda la nool ama yuusan lahaano, laakiin yani ugu yaraan in aad ka haysato fikrad ka haysato xaaladihiisa iyo sida loola tacaalo. marka aad baan u dhiirigelin lahaa. qodobka labaad oo aan aad u rabo runtii waa qodobka saxaafadda, oo halka yani runtii aanu ka murugaysannahay. dhammaanteeda waa la soconaa, waxa weeye mobileaanu haysanaa. mobilekaasi waxaa kusoo dhaco intaasoo kun oo messages baa noo soo dhaco, informations gaar ahaan waddanka ka imanayo. hadayda hadal baa layiri waxa weeye muxuu ahaa cid walbaa maanta darsatay saxaafaddii. wiil walba ama gabar walba dee social media soo galay, raba inuu information soo kordhiyo. marka walaalkan runtii waa ku mahadinaynaa in uu ka qoray saxaafadda xorta ah iyo saxaafadda qofka saxafiga ah, ma jiro muxuu ahaa wariyaha ah ama warka soo gudbinayo, runtii mas-uuliyadda saaran iyo waxa laga rabo. sababta dhibaatada ugu weynan haysata waxa weeye xaqiiqadii iyo waxa aan xaqiiqa ahayn baa isaga kaya dhex galay, oo informationska lagu soo kordhinayo maxaa lahaa lagu soo dirayo social media gaar ahaan waddanka ka imanayo. runtii dhibaato weyn bay noo geysteen. بارك الله فيك. إن شاء الله نبدأ قريش اليوم بينا وجود بينا إلى هذا محايلة
sweden ayaa waxaa la yiri bahda laashin ergey u joogo magaalada London marka ninkaasaa noo anaga mas-uula marka fadlan ila soo dhaweeya cabdikariin abko ergeyga bahda laashin ee UK. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan aad u soo dhaweynayaa Iftiin Xali iyo ambassadorka Xasan Xaaji. waxaan jeclaan lahaa straight away in loo gudbiyo labada qoraal ee noo sharaxaan. aniga magacaygu waa Cabdikariin Cabdulle. waxaan ku magac dheerahay afka Xaaji Qalin Weyne. soo dhawaada. haddana waxaan u dhiibaynaa faraxisi oo noo sharxi doonta macnaa dadka caruurta xaaladaha autism la nool insha Allah taala marka ila soo dhaweeya baarka السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay waxaa la yidhaha Iftiin Cali waxaan idinla Sweden magaalada Malmö. buuggayga waxaa ka weynaaday magaciisa oo mar way keenay waa maxay autism. buuggayga waxaa la yidhahda waa maxay autism oo ka hadlayay autismka iyo maaragtay saanyaasha la arko markuu inuu yaryahay. kana waxaan u raadinay magac kale marka dakaakii marka inta buuggaba aan la dhex gelin waxaa aad iyo aad dadku uga filbixiyeen ama uga hadleen buugga magaciisa isdhexgal keenta dakaaka ama dakaaka waa maxay. horta magaca buuggan in yarkeeda intaan lagu gudbin dakaaka waxaa qoray magaca waxaa bixiyay dhalinyaro Soomaaliyeed ee North America oo dhaqaatiira oo isu tegay waxay yidhaahdeen autism waa af English. anagu waxaan u baahannahay waxaan ku nirahay magaca ugu yeerno oo af Soomaali ah marka iyagaa bixiyey waa kalna oo badanna waan kasoo aqriyey oo ku qoran buugga marka insha Allah waan jeclaan lahay siin aragtay meesha xageen buugga magaciisa sabab ay keentay keentay inaan buuggan qoro oo maanta soo fadhiisto weliba ku dhiirado ilaa London ka noqon maayo anoo maaragtay buuggayga waxay ahayd waxaan haystaa markuu ninkaygu dhashay inaan maxaan ku raadahay cilmi baaris ama aan baaro waa maxay autism si aan ula noolaan sidaa ula dhaqmi karo wiilkayga sida ku habboon. af Soomaali waan ku waayay marka af Soomaali ku waayay waxay noqotay inaan maaragtay Google Translate geliyo meelaha qaar inaan maaragtay bedelo ama buugaag isku soo qaatay aan ku aqriyo. qofkaas ay u kaliftay inaan buuggayga maaragtay aan uga faa'iideeyo hooyooyinka ama waalidiinta haysta ilmaha baahida oo iga dambeeya si aynan u marin dhibaatooyinkii ama junuunkii tirada badan aan u aamursay. aad iyo aad u mahadsantihiin intiina noo timid waa naga badantihiin. mahadsanid walaashayda. mar walba oo aan arko hooyo la tacaalaysa qof xaaladda autismka qabo waxaan qadariyaa maqaar adeegoodii dhabar adeegoodii xataa hooyooyinkaas yani waxay noqonayaan hogaamiyayaal oo yani haween maadaama waxaas ay la tacaaleen marka ayagana waxaan rajeynayaa insha Allah hogaamiyayaashii mustaqbalka inay noqdaan hadduu Ilaahay yiraahdo. haddana insha Allah tacaala fadlan ila soo dhaweeya qoraa ambassador suxufi Xasan Maxamed Xaaji. baarak Allah fiik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن وعارف ما دعلنا يا مبشر روح ذو بدل يدك سواء عمري مبشر جميل وقت الوقت خالق وصوفري إني لدقيستان نقيمية بشرفان dadku ma yara marka ninkan madow oo idin hor fadhiyo waxaa la yidhaahdaa Xasan Maxamed Xaaji
wuxuu ku dhashay Boondheere haddii alla idmaayo wuxuu isdugsiga sare ka bilaabay 15 May 78 markaasaan waxaan isku fasal noqonnay nin caan ah oo shiikh ah caalim ah walaalkii oo la yiraahdo Sheekh Usuuli walaalkiis Cabdikariim oo asagana ah nin muxaafid ah oo diinta fidiya galabta waa imaan lahaa xanuuna kusoo booday marka isagoo wax qorayaan arkay markaas waxaa qoraysa article qortaa aniga way geystaa lacag yaraa laysoo siiya marka familiadana waxa waaye askara la ahaa oo biilka iyo waxa iyo xoogaa waa iska cariiri marka fursad oo soo baxday waaye article aan qortay waa u geeyay isagii waa ii fiiriyey madbacdii aan geeyey waa laysoo qoray joornaalkii kusoo baxday lacagaan helay maalintaasi wixii ka dambeeyey qalin iyo buug hooy iyo aabuma weydiinin macnaha meeshaasaan ka bilaabay waxaana la sheekaystay dad badan oo wax qora cabdiqaadir boolaaya ka mid ah oo hore xidigta Oktoobar u qori jiray Saciid Bakar ayaana igu dhaliyey inaan buugga qoro sheekooyin badan oo mar walba fursada aan isku helnaba oo iiga sheekeeyey laba sheeko ka kooban haddaan soo qaado reportera loo diray asaga marka reporter meesha loo diray asaga waa tegey booliska waa tegey laakiin ma tegin caafimaadka ma tegin macnaha oo shilaa dhacay meesha asaga artikelkiisa wuxuu ka dhigtay in dhimashada qofka meesha ku dhintay uu sabab yahay caafimaadka oo imaan waayo Saciid Bakar waa la xiray wax cad oo sameeyey laakiin xilligaa waa mugtahay xuduud markaa political oo dalkaas markaas u degsan ayaa saas ahayd haddana baarlamaanku tegey wuu eegay dadka aragtida aad u fog u ahay Saciid Bakar London ku dhintay wuxuu arkay nimanka xildhibaanka ahaa la rabay dugsi dhexe inay waxbarasho qabaan ay saxiixaan warqadda foolay baagada lacagta lagu qaato marka wuxuu arkay nimanka xildhibaanka ah oo suulka saaraya oo waxba aan qorayn article oo isagana ka qoray uu leeyahay xildhibaanadii laga rabay waxay keeneen inay suulka saaraan iyagana waa lagu xiray isaga waa lagu xiray nin kaloo qaali ahaa oo journalistiyaasha hore jiray waa jiraa oo baaritaan badan sameeyey baaritaan badan oo aad iyo aad u sameeyey oo doox nin la yiraahdo wuxuu kormeeray saldhigyada booliska oo dhan oo Soomaaliya ku yaal ayuu kormeeray markaasuu wuxuu soo arkay in reer uu u badan yahay macnaha isagoo uu saarihayo taliyaha oo markaa booliska ah oo u saarinayo marka asigana waa la xiray marka dal walba wuxuu leeyahay xeer iyo nidaam oo markaa asaga oo galaynin oo ilaalinayo ayaa jirta Paris maanta Nabi Maxamed oo 2 milyan oo qofood ay raacsan yihiin oo islaamku inta ka sii badan yahay nabiga waa lagu caay karaa laakiin laguma sheegi karo Israa'iil wax laguma sheegi karo macnaha xeerarka iyo xuduudaha oo dalalka ayaa kala duwan marka saxaafadu waana meesha kaliya wax laakiin hal ku dhiga la rabaa aniga waxaan dhiibay hal ku dhig ah ninka wariyaha noqohayo oo qoraaga noqohayo u sheeg dadweynaha waxa hooyada iyo aabaha u sheegay